بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan ardayda ku xiran janalka inay ka sbir option Soomaali. Maanta waxaan ka hadli doonaa su'aalaha ardaydu isla weydiiyeen ayaan jawaabahooda halkan ka sheegi doonaa. Waxaan ka jawaabi doonaa haddii Ilaahay idmo 5 su'aalood oo ah 5 su'aalood ugu muhiimsan oo ardaydu inta ugu badan ma soo celceliyaan. Okay, su'aasha koowaad waxay tahay ustaad kaararkee buu aqbalaa Casper option kaararkii buusan aqbalin Casper option. Walaal Casper option kaar kasta oo international waa aqbalaa. Markii aan ka hadalno marxaladda Soomaaliya, IBS Bank iyo Dar es Salaam Bank iyo Mastercard inta waa ku isticmaali kartaa oo maaragtay kaararka ku xiriirsan international bank. insha Allah waxaan rajeynayaa su'aashaas inaan ardaydii qabtay uga jawaabo oo maaragtay inta ugu badan su'aalaha la weydiinayay ahayd IBS Bank ma lagu isticmaali karaa oo ahayd iyaduna talabaad ahayd Mastercard ma lagu isticmaali karaa. Walaal labada waa lagu isticmaali karaa. Su'aasha labaad waxay tahay ustaad tii aan casharka hore kaga hadlayay signalka TB iyo profit muu leeyahay mise waxa uu leeyahay wax kale oo isaga u gaara. Cafwan su'aasha casharka hore kaga hadlay Casper option wuxuu leeyahay target waxa la yiraahdo qaacida la yiraahdo target inaad target leeyahatid meel aad lacagta kaga hadhid haday buy tahay buy haddii sell tahayna buy haddii sell tahayna sell. Okay, su'aasha saddexaad haddaan u imaado waxay tahay ustaad maxay ku kala duwan yihiin forex iyo maaragtay Casper option. Brother, forex iyo Casper option waxay kala duwan yihiin. Forex waxaa la yiraahdaa suuq, Casper option waxaa la dhahaa suuq isku mid maaha, isku qaacida maaha, isku istiraatiijiyad maaha. Kaliya waxay ka wada tirsan yihiin online market. Markaan ku leeyahay kaliya online market bay wadaagaan. Forexna wuxuu leeyahay qaacido u gaara, Casper option wuxuu leeyahay qaacido u gaara. Marka brother iska ka khaldan forex iyo Casper option isuma dhawo ismana laha. Su'aasha afraad haddaan u imaado waxay tahay oo ardaydu inta ugu badan ay weydiiyaan. Waxaan rajeynayaa ardayga su'aasha markaa u baahnaa inuu hadda maaragtay si fiican u dhageysto. Ustaad Casper option ma leeyihiin website-yo lala socdo newsyadooda iyo waxyaalahooda u gaarka ah. Okay, waxaan sheegay laba website oo aad iyo aad u muhiima. Website waxaa la dhahaa investing.com. inta badan arday waxaan arkay iyaguna forex u isticmaalaya laakiin website-kaas oo sabab aad u fiican kana hadla economic iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha caynkaas ah. Website-ka labaadna waxaa la yiraahdaa Trading Economics oo website isaguna aad iyo aad u fiican oo arday badan maaragtay markii aan u sheegay ay dhaheen ustaad wax fiican baan ka dhaxlay. haddii aan idinku celiyo labada website waxaa la yiraahdaa investing.com. waxaan rajeynayaa qoranaysaan qofkii maaragtay qalin iyo buug haysta qofkaas oo kala haddii wax qoranayo qofku wax qoranaya weligii maaragtay ku dambeeya guusha. Okay, website-ka labaadna waxaa la yiraahdaa Trading Economics baa la yiraahdaa. Okay, waxaan rajeynayaa maaragtay su'aashaas afraadna aan uga jawaabay ardayda. Su'aasha ugu dambeysa ee shanaadna waxa ay tahay oo ardaydu aduu hadda inta ugu badan ima weydiiyaan laakiin arday iyo waxa ay weydiiya waxa ay tahay ustaad koorsooyinkii maxaa ku dhacay koorsooyinkii sidee noqdeen. Okay, brother, haddii aan idinka jawaabo su'aashaas arday badan ay soo weydiiyeen. Horta koorsadii la bilaabay bishii ka dambeysay bishii Ramadaan adigu markay dhamaatay shanaad waxaan u maleynayay 20keedii la bilaabay koorsadaas. Koorsadaasi waxaa ka qayb galay 35 arday. 35tii arday koorsadaas waxay noqotay koorso maaragtay jadwalkeedii la sixi kari waayay because of koorsooyinka qaar waxaa jira maaragtay akademiyadu bixiso oo jadwalkooda la sixi kari waayay laakiin dib laga soxo jadwalkooda. Koorsadaas ilaa imika way taagan tahay jadwalkeedii ayaa la sixi la'yahay because of mashquulka ayaa soo batay. Sanadkana 6 bilood dambe waxaan isku diyaarinaa xisaab xidh suma diyaarino xisaab fur. waxaa jira akoona BMM oo maartay forecast on hore u haynay
oo bishii sanadka hore bishii lixaad haddii aan idin xog waramo sanadka hore bishii lixaad aan furnay markaa kabil weeye inaan akoonadii soo xidhno foorkasna akademiyadu maaragtay ay muddo inta sanadku ka dhammaanaya ay hakiso oo foorkas oo dhan ba la hakiyo ayay akademiyadu isla qaadatay markay shir akademiyada iyo macallimiinta wada galeen sidaa darteed horta foorkas baabkiisa ayaa lasoo xidhayaa haddii la ahayd bisha lixaad ilaa toddobaad labada bilood ayaa lagu tashaday in xisaab xidhka dhan lagu soo xidho ma ahan wax suuragelaya laakiin waa wax la suurtagelinayo in xisaabta intaa leeg labada bilood gudahood lagu soo xidho haddii la ahaydmo koorsadaasna aysan ka dambeyn bishii sideedaad haddii la ahaydmo ardadiina way qoran yihiin way liisgaraysan yihiin waxaan aragnay arday aad iyo aad u badan oo lambarka teacherka iyo lambarka akademiyadda intaba soo wacaya ardadaasna kuwa aan qancinay iyo kuwa hadda casharka markay dhegeystaan arkaya way jiraan koorsadaasi sida la idin sheegay waa liisgaraysan tihiin waad wada qoran tihiin qof maaragtay wixiisa wax isdabamarin ee dhacday ma jirto qof walba waa la liisgareeyey qof kasta waa la qoray hamoodina in maaragtay wixiina maaragtay gadaal la marsaday laakiin waa wixiina waa laydin ogyahay waana liisgaraysantihiin waana qorantihiin haddii ilaahay idmo bisha sideedaad koodeeda ilaa shanteeda inta udhexaysa ayaa laysoo wargelinayaa qof walba luuqa lagala soo hadlaya qof walba lasoo wacayaa haddii ilaahay idmo intaa wixii ka horeysana si aan casharkan cashar ka horeeyay ku sheegay 1 month oo waxaad leedihiin signal free ah wixii ka dambeeyana signals waxay noqon doonaan step by step wixii jeebkiina ayaa laydinku xukumi doonaa haddii ilaahay idmo fadlan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad shantii su'aaloodba idinka jawaabay qofkii dhaaftay waxaan rajeynayaa inuu dib ugu laabto casharka uu soo dhegeysto shanta su'aaloodba qaabkan uga jawaabay qofkii maaragtay wax tabanayana wuu soo weydiin karaa su'aashiisa commentiga ayuu igu reebin doonaa wixii su'aashiisa ah arday badan hadda waxaan arkay lahaa macna casharka soo dhigtay commentiga uu ka xiran yahay insha Allah waxaan rajeynayaa kan inaan commentiga u furo maaragtay gacanta iga dhacdaa laga yaabaa laakiin waxaan rajeynayaa kan inaan commentiga u furo arday walbana inuu maaragtay commentiga igu soo reebo wixii araaha iyo wixii fikra iyo wixii maaragtay cabashaa uu qabo waxaan rajeynayaa ardayda iga soo wacaya WhatsApp call inta ugu badan 99% ma qabto because of qof mashquul ayaan ahay saan idin sheegayna waxaan rajeynayaa inaad WhatsApp cod igu reebtaan Telegram cod igu reebtaan codkiina aan dhageysto wixii aan waqti u helo uga soo jawaabana aan uga soo jawaabo kuwa kale insha Allah marka aan waqti helan u soo jawaabaya fadlan channelka mar labaad iyo mar saddexaad buu soo dhawaada subscribe like and share inta waa xaqiina waxaan rajeynayaa in maaragtay channelkeena uu noqdo channelka kaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala socoto expert option taana idinka ayaa gaarsiin kara oo channelka si share gareyn kara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مبارك